markii illinka la iga furay waxay indhahaygu qabteen ninkii maafiyada ahaa oo sii jeeda. wuu soo jeestay, isha ayuu isaaray, wuu dhoolla caddeeyey, aad u farxay. gabadhaydii alla qurux badantaydii. wuu ii soo cararay, kor inta ii qaaday, meel walba iga nukaday, igu yidhi see tahay, ma fiican tahay, xaggee jirtay, maxaa u dhuumatay? wuxuu u maleeyaa isaga inaan si iskay ah isaga tegay guriga. ma oga in aniga oo bakhaar ka soo baxaya lay afduubtay. wuxuu u haystaa inaan noloshan gurigan ku haystay oo idil intay anfici weysay nolol kala raadsaday. waxaan ku idhi waa lay afduubtay, reerkayga ayaa xoog igu kaxaystay. indhihiisa ayaa guduutay intuu carooday ugu yidhi haddaan raadinayaa. kadib waxaan ku idhi maya, aniga ayaa hadda ka soo baxsaday, halkan ayaan ku noolaan doonaa. hana ka welwelin, hadda wixii ka dambeeya awood uma yeelan doona inay mar kale iqafaashaan oo xoog ugu kaxaystaan. waxaa mar kale ii soo noqotay xorriyaddaydii aniga aan muddada weysanaa oo ay reerkaygii iga faramarogsadeen. hadda awood uma laha inay gurigan soo galaan oo ninkan maafiyada inta soo weeraraan xoog igula baxaan. waxaan ku noolahay noloshii boqortooyo ee aan markii ninkan maafiyada ah gacantiisa galay ilaahay i siiyey. waxa uu ahaa nin dadka kale aad ugu naxariis daran, laakiin aniga aad iigu fiican. waxa uu ahaa nin had iyo goora jecel inuu ogaado xataa waxa aan cunay inay isku mid yihiin midda reerka loo kariyey inay mid kala tahay. maadaama hadda aysan jirin wax aan ka baqanaya iyo halis igu soo fool leh oo ii muuqata, inkastoo aan yarahay oo aanan fahmi karin waagaasi waxa aan samaynay inaysan saxnayn, waxaan go'aan ku gaaray inaan noqdo gabar daroogista ah. waxaan jeclaystay inaan noqdo sida ninkan maafiyada oo kale ah, inaan ciidan samaysto, aan dadka qafaasho, inaan ka aarguto wax alla wixii dhibaato ii geystay, inaan sidoo kale dhibaateeyo dadkii deriska ahaa ee igu daawan jiray markii hooyaday waddada igu garaacayso, aabbahay ceyrinayo. cid alla ciddii dhibaato ii geysata ugu yaraan inaan carruurtooda iyagan dhibaato u geysto, in aan dareensiiyo waxa aniga aan ku soo noolaa xanuunka ay leedahay iyagan inay dhadhamiyaan, si ugu yaraan aan u helo in yar oo aargoosi ah oo aan noloshaydan cusub igu qancin karta. arrintan aan go'aansaday inaan ku dhaqaaqo waa mid guud ahaan ka hor imaanaysa wixii aan ku heshiinay ninkan maafiyada ee gurigiisa aan ku noolahay. ma oggola haba yaraatee in aan isticmaalo daroogada, iibiyo ama meelaha ay taallo u dhowaado. ma oggola in la igu arko goobaha ay joogaan dadka maafiyada ama dumarka xuxun ee jirkooda ka ganacsada ama xumaanta faafiya. wuxuu igu dhihi jiray, waxaad ku qasban tahay inaad noloshaada dhanka wanaaggaa u waddo, haddii kale waxaad waayi doontaa mid ka mida xubnahaaga. waxaad noqon doontaa qof curyaan ah oo aan awoodin wax alla waxay doonto inay samaysto. haddaba su'aasha ii hor taallo waxay tahay, siday iigu suuragelaysaa aniga in sida aan jecelahay sameeyo, ugana badbaado halista aan kala kulmi karo ninkan haddii aan arrintaasi sameeyo? inkastoo aan yarahay caqligayguna ii kala go'in, haddana waxaa igu jirta maskax aad u buuxda, aad u wanaagsan, ku fikiraysa dhan weliba ay suuragal tahay inaan waxa aan jecelahay sameeyo ugana badbaado ciqaabtan halista ah. waxa aan daraaseeyey guriga iyo nolosha lagu nool yahay. waxaan ogaaday in mararka qaarkood ay yimaadaan rag kale. raggaasu markay imaanayaan micnaheedu waxa ay tahay ninkii maafiyada ee guriga lahaa guud ahaanba ma joogo, ma aqaan halka uu jiro. markuu isaga soo dhowaado guriga waa la faarujiyaa. inta uu joogana haba yaraatee wax kale oo gurigaasi yimaada oo aan isaga ahayn ma jirto. arrintaasi waxay ii noqotay jaanis aan ku ogaan karo markii aan arko ragga kale oo guriga soo gelaya, micnaheedu inay tahay ninkaasi inuu dalka ka maqan yahay ama meel kale uu jiro, aan awoodo inaan sameeyo wax alla wixii aan u baahanahay. markan waxa aan helay isla jaaniskii. waxaan dhowr jeer arkay rag soo gelaya gurigii iyo ninkii oo maqan. waxa ay ahayd sannad cusub oo soo gelaya. habeenkaasi waxaa jira dabaaldeg. waxaan ku biiray dadkii dabaaldegayey, waxaana isticmaalay daroogo aanan weligay isticmaalin.
xubnahaygu waxa ay dareemayeen inaan aniga nolol kala galay waxaan dareemayay farxad qalbigayga ku jirta aanan fahmi karin waxa ay tahay waxaan dareemayay inaan noqday qof guul gaaray oo kale arrintaasu waxa sababa waxay ahayd daroogadii igu horraysay aan isticmaalay habeenkaasi wax kale oo dadka meesha jooga daroogada isticmaalay aysan samaynin oo aan sameeyeyna way jiraan hadda ma raba inaan sheego waa wax aad u foolxun yaraanta waa cadow laga koro aniga oo iska baashaalaya daroogadaydiina dhagaha ka jafaya ku raaxaysanaya noloshan aaminsanna inaan helay sidii aan doonayey ayaa mar qura waxaa ii soo noqday maskaxdaydii markii caqligaygu soo noqday waxaan akhrinayay inna allaha laa yahdi alqawma alfaasiqiin ma aqaan macnaha loola jeediyey waxa ay tahay laakiin waxay ahayd qur'aan aan akhrinayay maadaama qur'aankaan xaafid ahaa waan istaagay jidhkaygoo dhan wuu jareeyey waxaan is idhi malaha caawa oo dhan inta aad daroogaysnayd waxaad akhrinaysay qur'aan dadkanoo dhanna maadaama iyagu ay daroogaysan yihiin kumaysan fahmin waxa aad akhrinayso gees ayaan istaagay waxaan fiiriyey dhammaan noloshii meesha ka jirtay iyo dadku siday u baashaalayeen dhinac weliba ayaan fiiriyey waxaa ii soo baxday inay noloshan ahayn nolosha ilaahay igu tala galay ugu yaraan waxaan aaminay qur'aankan aan xifdisanahay inuusan oggolayn halkan aan joogo waa markii igu horraysay oo anoo qur'aan akhrinaya uu qalbigaygu soo noqdo marar fara badan ayaan suuxay oo miirka waayey garaacis la ii garaacaya darteed markii aan miirkii helayna ma xusuusto anoo wax qur'aana akhrinayo caawa waxa aan afka ku hayaa qur'aan ma aqaan sababta waxaanna fahmay inaan ahayn gabar noloshan ilaahay u sameeyey waxaan go'aansaday inaan halka isaga baxo markii aan sidan u soo dhaqaaqay ayaa indhahaygu waxa ay qabteen ninkii maafiyada ahaa oo aan heshiiska wada galnay oo gacanta igu soo taagaya iguna dhahaya waa kuu dhammaatay adiga waa kuu dhammaatay waan ku soo cararay waxaana ku idhi waan ku baryaa hadhihin sidaa wax aan raba inaan kuu sheega ayaa jirta ilaaha qalbigiisa jilciy wuxuu igu yidhi ma waxaad rabtaa inaad igu qanciso xumaanta aad samaysay inaan ku cafiyo markaasaan ku idhi maya ee dhammaantayba waxaan ka tegi doonaa noloshan aan ku jiro xataa gurigaaga waxaan raadsan doonaa noloshaydii iyo diintaydii aan jeclaa wuu qoslay wuxuuna ii muujiyey farxad wuxuu igu yidhi haddii aad annagoo dhan naga dhex baxayso oo aad wanaag gaara raadsanayso dad fiicanna la noolaanayso waad iga badbaadaysaa waxaan ku idhi waa ballan dib dambe iguma arki doontid gurigaaga iyo guryaha la mid ah meesha adiga aad joogto iyo meel la mid ah wuu farxay hab ayuu i siiyey ka dibna wuxuu igu yidhi allah ku ilaaliyo aad ayaan kuu jeclahay laakiin qalbigaaga siduu u fakeraya oo xumaanta aad necab tahay darteed waan ku taageerayaa allah ku ilaaliyo ha ka leexan waddada ilaahay annagaa lunnaya adigana ha lumin qof weliba oo aad aragto ee xumaanta ku taaganna u sheeg inuu adiga ku raaco sidaas ayaan uga soo dhex baxay noloshii maafiyada ahayd iyo go'aankii aan qaatay oo idil laakiin markan guriga bannaankiisa ayaan taaganahay ma aqaan meeshii aan ka bilaabi lahaa nolosha xigta xaggeen aadaa yaan gurigiisa u hoydaa yaa i caawin kara yaa garab isiin kara markii aan maskaxda ku noqday oo dhan waan waayey haba yaraatee qof aan isleeyahay qofkaas ayaa faa'iido kuu leh noloshaadana ku garab istaagi kara laakiin waxaa qalbiga mar qura igu soo dhacday inay jirto naag mararka qaarkood isha iiga beer jilci jirtay ma jirin wax eraya oo ay tiri laakiin waxay ii muujin jirtay inay ka xun tahay waxa anay ugu socda naagtaasi oo isha iiga baaqin jirtay iina muujin jirtay in waxa aan ku jira dhibaato ah aysan waxna ka qaban karin awoodna u lahayn laakiin aad uga xun tahay bal waxaan is idhi islaanta maanta aad ma ahayn qof aad u weyn qiyaastii 22 jir ayay ahayd gabar yar nin ma lahayn hooyadeed iyo aabbaheed iyo reerkeedana ma aqaan laakiin waxaan xusuustaa meel aan gurigeenna ka fogayn ayay dukaan ku iibin jirtay sidaan u soo socday ayaan dukaankii imid waxa uu ahaa dukaan aad loo jecel yahay dadku isku dilaan habeen iyo maalin aad dadku wax uga iibsadaan ma jirin maalin aan la keenin alaab cusub waa mar alaab la dejinaya ee mar dadku ay sii iibsanayaan gabadhaasi waxa ay haysatay ganacsi aad u wanaagsan waxay xaafadda ku haysatay farxad aad u wanaagsan waxay dadkoo dhan u aqoonsanayeen gabar wanaagsan oo ganacsato ah markii aan u tago isha ay saartay waxay igu tiri ma gurigiinna ayaad ka timid mase guri kale
waxaan ku idhi guri kale. waxay igu tidhi reerkaagu goormaa kuugu dambaysay? waxaan ku idhi ma xusuusto. waxay igu tidhi soo gal. hoosta ayay i gelisay. waxay tidhi ha hadlin, aamusnow, halkaaga isaga jir, cunnaan ku siinayaa ilaa caawa laga gaaro. habeenkii markii la gaaray ayay isoo kaxaysay, waxay ay keentay gurigeeda. waxay igu tidhi halkan ku noolow, waxaad doonta anaa kuu keenaya, laakiin hal shardi, bannaankana ma imaan kartid, meel ma aadi kartid, halkan ayaa noloshaada ku badbaadin karaa. waxaan ku idhi walaashaydii khayr allah ku siiyo, waan ogahay inaad tahay qof naxariis badan, waana sababta aan kuugu imid. laakiin gabar doonaysa inay wax barato, mustaqbal samaysato, diinta ilaahay jecel, madraso qur'aana inay sii dhigata rabto, diintii barato, siday ku suura gelaysaa in guri aad ku xabisto? waan xusuustaa arrintaasi markaan dhahay way ooysay. waxayna igu tidhi ii akhri qur'aanka meesha aad u jeceshahay. waxaan ku dul akhriyey suuratu shamsi. waan xusuustaa gabadha jidhkeedoo dhan wuu gariirayey, aad ayay u ilmaynaysay, waxaana ka muuqatay inay qur'aanka aad u jeceshahay. iyadoo ooynaysa intay soo fiirisay igu tidhi qur'aanka may baraysaa? waxaan ku idhi haa, adigana ii oggolow inaan diinta sii barto. igee iskuul wanaagsan oon diinta islaamka ka baran karo, adigana waxaan ku barayaa qur'aanka. waxay igu tidhi awood ma lihi, maskiin ayaan ahay, yaa iga celinaya reerkaaga? hanti ayay leeyihiin, booliiska ayay ka tirsan yihiin, dawladday u shaqeeyaan, aabbaha waa taqaannaa, hooyadaa waa taqaannaa, dhibaato ayaa la ii geysan doonaa, yaa i badbaadinaya? waxaan ku idhi markaa ilaahana badbaadin doonaa, ha welwelin, laakiin adiga iskuulkaa igee, guriga markaan ka baxayana dhuumashaan ku bixi doonaa, markaan soo noqdana dhuumasho ayaan ku soo geli doonaa. isla maalinkii ku xigtay musiibo socotaaho cid celin kartaaho ma jirtee, aniga oo maagay bal mar qora bannaanka tag, ayaa waxaa indhaha igu dhuftay in adeerkay. wuxuu igu yidhi ma halkanaad joogtaa? halkanaad ku nooshahay oo aad ii xijaab dheer tahay? intuu soo orday